السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرفت بدن مقعيقو ismael diriye waxaan jeclaysay inaan halkan idinkula sheergareeyo aqoontayda intii Ilaahay iga karansiiyo taasoo ku saabsan barista software-iska ka caawin kara inaad noqoto qof laacib ku ah naqshadeynta dhismaha. Software-iskaas waxaa ka mid noqon doona AutoCAD-ka oo aad ku samaysan doonto 2D plan detail ah iyo Revit Architecture oo ka caawin doona inaad laacib ku noqoto 3D planka ama guriga oo 3D ahaan aad naqshadayso iyo Lumion-ka ka caawin doona qurxinta dhismihii aad samaysay si uu u noqdo mid aad u soo jiita bulshada. Sidoo kale kama marnaan doonaan inaan ku soo dhex turno barnaamijyada photographic design-ka sida Photoshop-ka, Illustrator-ka, InDesign-ka haddii uu waqtiga noo saamaxo. Sidoo kale kama marnaan doonaan inaan dhextaal ka dhigano barnaamijyada video editing-ka sida Filmora iyo Premiere Pro. Casharradeena waxaan xoogga ku saari doonaa si gaar ah barnaamijka Revit Architecture kaasoo ahaan doona barnaamij ballaaran aadna u anfici doona qof walba oo jecel samaynta 3D qurux badan haddana soo jiidasho leh. Sidoo kale waxaan xoogga saari doonaa barnaamijka Lumion kaasoo ka saacidi doona markaad Revit design-ka ku soo samayso inaad ku sii qurxiso adigoo heli doona dhulal diyaarsan haddana qurux badan kaasoo dhismaha ka dhigi doona mid realistic ah. Indhahana soo jeeda sidaasna waxaa ku noqon doonta mucaashaq aad u jecel design-ka. Sidoo kale AutoCAD-ka si muuqata baan indhaha u dul istaajin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan qiyaasayaa ardayga intaas isku helaa inuu laacib dhammaystiran ku noqon doono naqshadeynta naqshad ahaanna heli doono kalsooni dhammaystiran. Haddaba waxaan kuugu baaqayaa inaad subscribe garaysato channel-kan si aad noola socoto si joogto ah. Like inaad saarto ama share garayso waxay naga caawin doontaa video-gan inay arkaan ama uu gaaro saaxiibo badan. Mahadsanidin.